haweeney baa dhimatay habeen kasta nin ay qaraabo yihiin oo akhyaar ahaa oo culimo ahaa baa ruuyo ku arka qabrigeedii oo gubanahayo hoolac ka shidan yahay ayaa waxa ka dhaxyeeraya ayadii oo holcaysa oranaysa alxaliib 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 ereygaas ku dhawaaqaysa iska cawdu billaystaa ninkaani faruhu ka qaaday dhowr sano markay ka soo wareegtay rooyadii habba ay ku soo laalaabanayso ayaa ninkii wuxuu go'aansaday arrintan inuu baaro oo ay leedahay haweentan gubanayso qabriga ku gubanaysa oo rooyada ku arkahayo alxaliib alxaliib caanaha ku haysa qaraabadii buu u yimid dadkeedii wareystay gurigii buu yimid qisadan waxa la yiri hadaa saa soo aragtay waa macruuf haweentan waxay haysay ilmo ay dhashay iyo ilmo ninkeedu dhalay oo ayadu aysan dhalin oo saqiir ah bay haysay biilka loogu dhiibaa caanaha markay keento ilmaha aysan dhalinna koobka barkiis bay biyo ugu dartaa waa u baraxdaa kuwa ay dhashayna biyo ugu darto ayagoo aan biyo lahayn bay siisaa macruuf bay ahayd in ilmaha saqiirka ah oo mas'uulka ay ka tahay oo biilka loogu wada dhibay qaarna caanaha ay biyo ugu darto qaarna waxa weeyaan ay ka daysa biyaha macruuf bay ku ahayd ereyga marka aad arkaysa alxaliib alxaliib anagu intaan ka ognahay xogtiisu intaas weey